maanta waxaan baran doonaa xisaab qaybta kamid la dhaho geometry. Geometry badanaa waxaa loo adeegsadaa cabiraada dhulka, wax kastoo cabira space leh. Maanta waxaan baran doonaa saddex xagal. Saddex xagalkan oo ah xagal toosan leh. Xagal toosan macnaheedu waxaa laga wadaa xagashan ayaa 90 degree ah. Marka waxaa la Ingiriis ahaan right angle triangle. Wuxuu leeyahay saddex dhinac xagalka. Xagashan 90 waaye. Xagashan kale waa labada xagalna waxa marka la isku daro waxa wax isku noqonayaan 180. marka maanta waxaan xisaabi doonaa dhinacaha saddex xagalka A iyo B iyo C. marka waxaan raadinayaa C anagoo isticmaalayna macnaha theoremka la dhahayo Pythagoras theorem. Pythagoras waxa weeye macnaha A square plus B square waxa la mid tahay C square. marka waxaan haysanaa A oo ah 3. A waxay la mid tahay 3. A waxay la mid tahay 3. B na waxay la mid tahay ayadana 3. marka waxaan raadinaynaa C maxay la mid tahay C maadaama sharcigan aan haysano sharcigan ayaan isticmaali doonaa hadii la idmo. marka waxaan leenahay 3 square lagu daray ayadana B dan 3 square waxay la mid tahay C square. haddaan kala wareejino waxaan leenahay C square waa kala wareejin laba isku mid waaye 3 square waa 9 lagu daray 9 kale 3 kale square ayadana 9 waaye waxay la mid tahay 18. okay C square waxay la mid tahay macnaha 18. maadaama C aan rabno inaan helno square ayaa ku jiro square waxaa lagu bixin karaa waxaan gelinaynaa root. marka waxaan leenahay laba dhinac root geli marka isla egta badanaa waa in la geliyo haddii dhinacan gelisa dhinacan kale ina gelisa waa ayadana marka waxaan laba dhinac root ka bixiyaan leenahay macnaha marka C square oo root la geliyay waxay la mid tahay 18 oo root ku jirta ayadana. rootka iyo square-kan isku baxayaan marka waxay noqonaysaa C waxay la mid tahay 18 oo xid ku jirto insha Allah. marka jawaabtaan C deelna waxaan lahaa C dan badan waxaan lahaa magac kale waxa la hypotenuse la hypotenuse macnaha waxa waaye xagashan 90 ka dhinac ka soo jeedo waxa la hypotenuse labada dhinacna waa laba dhinac A B loo kala bixiyaa marka insha Allah dib aan soo bari doonaa hadii la idmo. marka C waxaan yeelnay 28 xid ku jirto sidee ku hubi doonaa macnaha sharcigan hubi doonaa macnaha sida inay saxda marka waxaan leenahay okay maadaama C aan noola mid tahay 28 xid ku jirto C ay noola mid tahay 28 xid ku jirto 28 xid ku jirto marka waxaan leenahay ambar weyn macnaha A maxay la mid tahay adoo sharciga hadaan soo qaadanay A B C waxaan hubinaynaa sharcigan inuu sax yahay jawaabta inay sax tahay macnaha marka waxaan leenahay maadaama hadda waxaan raadinaynaa A ayaan raadinaynaa A ma naqaan tusaalaan kaba soo qaad laakiin B iyo C haysanaa marka waxaan leenahay maadaama aan A raadinayno waxaan leenahay maadaama A square plus B square ay la mid tahay C square marka B dana wareejinaynaa intaan keenaynaa marka calaamada way bedelaan hadda plus y minus ay noqonaysaa waxaan leenahay A square waxay la mid tahay C square oo laga jara B square. okay weli A square ma naqaano laakiin waxaan ognahay C square inay la mid tahay 18 xid ku jirto 18 oo xid ku jirto oo square ah laga jaray B adan waxay la mid tahay 3 square ah. okay marka A square waxay noola mid tahay xididkan iyo jibaarka isku baxan sidoo aan sameeyay ama la isku baxayaan 18 laga jaray 3 square waa 9 18 laga jaray waxay la mid tahay 9 marka A square waxay la mid tahay 9 sidoo waxaan sameeynaa maadaama aan rabno marka laba dhinac aan ka bixinaa xidid amba square root square aan ka bixinaa probio marka hadii square xid la geliyo 9 kana xidka la geliyo waxay la mid tahay A square oo xid ku jirto oo la mid ah 9 waxay la mid tahay 3 laba jibaaran oo aydan xid ku jirto waxaan ognahay jibaarka iyo xidka isku baxayaan marka waxaan leenahay A waxay noola mid tahay 3 marka waxaan dhigi karnaa macnaha sharcigan Pythagoras waa macnaha waa sax hadii la idmo. waxaan baran doonaa saddex xagalka noocyo badan xagashan sidii lagu heli lahaa
xagashanka si lagu heli lahay marka saddexdan xagal marka la isku daro 180 la mid yahay marka insha Allah waxaan bar doonaa macnaha xagalada si dib loo bar doonaa maanta casharkan aan ku simi doonaa hadii la idmo wixii su'aal ah waxa waaye comment waa bixi kartiin waa ka jawaab hadii la idmo waa